السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. soo dhawaad asxaabta. haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato channelka, subscribe inoo saar, gambaleelka furo si aad ula socoto casharo ku saabsan barashada luqadda Ingiriiska. casharkeenu wuxuu ku saabsan yahay people and their jobs, dadka iyo shaqooyinkooda. people, dadka, and their jobs, iyo shaqooyinkooda. Number 1, someone, qofka, who flies, kaasoo duuliya, an airplane, diyaaradda, waxaa la yidhaahdaa pilot, duuliye diyaaradeed. Number 2, someone, qofka, who, kaasoo repairs, hagaajiya, cars, gawaadhida, waxaa la yidhaahdaa mechanic, geerashle. Number 3, someone, qofka, who draws, kaasoo sawira, pictures, sawiraanta, waxaa la yidhaahdaa artist, sawirle ama farshaxan. Number 4, someone, qofka, who paints, kaasoo rinjiyeeya, houses, guryaha, waxaa la yidhaahdaa painter, rinjiile. Number 5, someone, qofka, who cures, kaasoo daaweeya, sick people, dadka xanuunsanaya, waxaa la yidhaahdaa doctor. Someone, qofka, who teaches, kaasoo waxbara, the people, dadka, waxaa la yidhaahdaa teacher, macallin. Number 7, someone, qofka, who begs, kaasoo barya ama tuugsada, the people, dadka, waxaa la yidhaahdaa beggar, dawarsade. Number 8, a man, ninka, who sells milk, ninkaasoo caanaha iibiya, waxaa la yidhaahdaa milkman, caanoole ama caanagade. Number 9, someone, qofka, who buys something, kaasoo iibiya shay, waxaa la yidhaahdaa shopper, dukaanle. Number 10, someone, qofka, who keeps, kaasoo ilaaliya, or sells a shop, ama dukaanba iibiya, wuuna ilaalinaya ama wuu iibinaya, waxaa la yidhaahdaa shopkeeper, dukaanle, waa isku micno. Number 11, someone, qofka, who drives, kaasoo kaxeeya, a car, gaadhiga, waxaa la yidhaahdaa driver, darawal. 12, someone, qofka, who serves passengers on a plane, qofka u adeega rakaabka diyaaradda, waxaa la yidhaahdaa hostesses. Number 13, a woman, gabadha, whose husband, ninkeedu, died, uu dhintay, waxaa la yidhaahdaa widowed. Number 14, someone, qofka, who hijacks an airplane, diyaaradaha afduubta, waxaa la yidhaahdaa hijacker, afduuba diyaaradeed. aad baad ugu mahadsantahay daawashada iyo dhegeysigada.